daawadayaal soo dhawaada ciyaaraha aan geli doonaa barnaamijka ciyaaraha xalay Arsenal wacdar ay dhigtay nimankii Chelsea xalay waa la dubtay 5 ayaa dhabarka loo saaray waxa wararka marka aan ku soo qaadan doonaa ciyaarta xalay ciyaaraha caawa dhici doono iyo sida Premier League oo noqon doono Arsenal sidee rajadeedu tahay Premier League ayaan ku soo qaadan doonaa marka xalay Arsenal waxay wacdar ku dhigtay nimankii maxaa la Chelsea waxa marka la yaabay Arteta yaabay madaxa qabsaday marka qaar teamka sida loo joogo marka aragtid adaa madaxa qabsanaya tababare xalay marka odagii Arteta madaxa qabsaday nimankan la yaabo wax ku dhacdo ku socdo sidaas daraadeed xalay Arsenal wacdar ay dhigtay dhabarka ayaan u saaray guul dara xanuun badan Ben White ayaa laba dhali waxa kale oo isagana laba dhali Kai Havertz inkastoo ku dabaal degay oo ku wacdareeyay Trossard hal ayuu dhaliyay marka shantaas gool ayaa xalay nimankii dhabarka loo saaray waxaa marka dareemi kartaa in isbedel weyn oo ku yimid Premier League Arsenal rajadeedii ay weli taagan tahay dhankan haddaan fiirino Serie A-da Lazio ayaa 2-1 uga badisay Juventus laakiin Juventus ayaa soo baxday oo marka hore 2-1 kusoo badisay Coppa Italia halkaas ay marka xaaladii noqdeen caawa marka kulamo ayaa jiri doono waxaana jiro Manchester United iyo Sheffield United ayaa markaasi jiri doono waxaa kaloo jiri doono Everton iyo Liverpool oo iyadana tartanka ku jirto Realka Everton ayaa aadi doontaa marka caawa haddii la qabto Liverpool Arsenal oo duceysanaya nimanka Wolves iyo waxaa kaloo ciyaari doona Bournemouth Crystal Palace iyo Newcastle oo ciyaari doonaan marka halkaas ciyaaro adag ayaa jiri doono Coppa Italia waxaa ciyaari doona Atlanta iyo Fiorentina oo iyagana markaasi dheeli doona Coppa Italia semifinalka ayay iyaguna ciyaari doonaan Juventus ayaa final fadhida kooxdii kale oo soo baxda ayay sugaysaa marka ciyaarihii wajiye kale ay yeesheen waxaa leeyahay marka Arsenal kulamadeeda hadda u haray inay si toos u wada badisay u baahan tahay sababtoo ah waxaa warta Arsenal 4 game haday badiso kooxaha kale waxaa u haray Liverpool oo kale 5 game oo hartay nimanka lagu magacaabo Man City kulan wada ka baaqday ay laba kulan hadda saas ay ku leeyihiin waxaa u hartay marka Man City 6 game oo hartay marka Man City 6daas game Arsenal ay 4 game badiso waxay markaas noqon kartaa Realka Man City markaas kulan kamid ah lagu adkeeyo marka Mikel Arteta wuxuu sheegay inay si fiican u ciyaareen kooxdiisa uuna aad ugu farxay wax weyn oo dareemayo xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay marka Arsenal Chelsea waxyaabo badan laga diiwaan galiyay sababtoo ah ninkii maxaa la Havertz ahaa ayaa xalay taariikh u dhigay kooxdiisa hore uuna ku dabaal degay marka waxaan soo qaadanaa bal xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay Arsenal ay guusheeda ugu weyneed ka gaadhay Chelsea tartamada oo dhan oo ah 5-0 waa xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay kamid tahay gool daradii maanta ayaa artii ugu cusleeda leeyahay Chelsea ka soo gaartay guud ahaan kulamada London Derby tan iyo gool daradii 6-0 ay ka soo gaartay Queensberg Rangers bishii March 1986 gool daradaas ay mid ugu weyneed noqotay Chelsea soo gaarto 86 waxa ka dambeeyay goosha Arsenal ayaa waxa kala soo afjaraysaa record gool dar la'aan ee Chelsea 8 kulan oo ugu dambeeyay 4 barbaro iyo 4 gool oo markaasina waxa afartaas soo afjaraysaa leeyahay gool darooyinkooda isdaba joog ah waxaan marka u dhaxeeya leeyahay January ilaa March 2012 kulan ay markaas wada ciyaareen marka Arsenal ay laga badiyay kaliya hal kulan 9kaas kulan oo ugu dambeeyay oo Premier League ah oo ay wajahday Chelsea 6 gool ay ka gaareen 2 barbaro ay galeen halna gool darro ay markaas la kulmeen Arsenal record fiican ku leedahay Chelsea markaas u fiirisid marka ciyaar ma nimankaas Real Madrid nafskeeda waxa way Realka ay ku dhowdahay marka rajadeedu way sii dhawaanaysa hal kulan oo soo socda badiso waxa leeyahay Realka ayaga iskale George Klopp waxa la xaqiijiyay inuu iska tagi doono naadiga Liverpool laga yaabo inuu markaas tababaro kale ay markaas raadsadaan kooxaha Jurgen Soton wuxuu sheegay in xalay saadaalishiisa nooc kale ay noqotay marka Jurgen Soton wuxuu ciyaar jiray naadiga waxa la yiraahdaa Chelsea marka wuxuuna sheegay in Arsenal ay koox adag ay tahay sidaas daraadeed wuxuu sheegay in gool xiriir ah inay soo gaartay si lagu joojinayo adag tahay marka waryahankii hore ee Premier League Soton ayaa sheegay in kulan halis ah uu yahay Arsenal kuwaas oo ku joogta koobkeedii ugu horeeyay tan ilaa iyo 2004 wuxuu marka leeyahay waxa u muuqata kulan halis ah Arsenal marka loo oga xaaladda ayuu sii raacay marka guusha Arsenal iska sii siiyay ninkan isagoo Chelsea ahaa oo hadana taageeray guusha sii siiyay nimankaasi arki doonaa AC Milan waxay go'aan ka gaartay leeyahay tababaraheeda Stefano Pioli ayuu laga yaabaa in tababaro kale ay magacaabaan Thiago Silva waxa leeyahay mustaqbalkiisa ayaa dhamaaday oo ninka hadda Chelsea difaac ugu ciyaaro waxaana laga yaabaa inuu iska tago naadiga maxaa la yiraahdaa hadda u dheelay Chelsea ninka yiraahdo Omerem oo ah tababarihii aad u doonayay Liverpool waxa leeyahay waxa soo gashay wada hadalna la gashay rasmi ah naadiga West Ham
marka dadku waxay isweydiinaya ninkii Liverpool jiday ee West Ham dooranaya maxay tahay, waa waxyaabo kale ayaa iska jiri kara. marka Inter Milan waxay ku guuleysatay horyaalka Premier League markeedii 20aad, waxaanu leeyahay meel fiican ay markaasi ay ka gaartay. mar waxaa loo qaaday Juventus oo Calciopoli lagu eedeeyay, sidaas daraadeed 20 jeer ay gacanta ku dhigaan horyaalka. maamulka Manchester waxay go'aan ka gaareen mustaqbalka Erik ten Hag, ayagoo sheegay inay ceerin doonaan tababarahaasi, asagoo sheegay in markaasi uu u badan tahay in markaasi sii joogo, maadaama la leeyahay ninkani waa lagu caajisay, suuragalna maaha inuu sii joogo. marka waa arki doonaa. Jose Mourinho wuxuu qarka u saaray in loo magacaabo bedelka Jurgen Klopp Liverpool inuu noqdo ninkan Premier League kusoo noqday. marka waxaa leeyahay kooxda Liverpool ayaa lagu soo warramaya inay u dhowdahay inay tababaro cusub magacaabo tababarihi hore Manchester United, Chelsea, Jose Mourinho. laakiin waxaa la leeyahay in suuragal ma tahay, weli waxaa tartan ku jiro tababaraha Sporting Lisbon Ruben Amorim, laakiin Jose Mourinho waa asagana qofka labaad oo laga yaabo in tababaro u noqdo. waxaana wararku sheegayaan in Jose Mourinho oo mar kale is arki doonaan macalinkan xanaaqa badan, waxaa la leeyahay inuu Chelsea taga ayaa laga yaabaa. marka waa arki doonaa. ciyaaro badan ayaa markaasi la qiimeynaya oo waxaa la leeyahay bal Arsenal iyo horyaalka ma ku guuleysan kartaa, adigoo isweydii. dadku waxay leeyihiin Arsenal sanadkan horyaalka waa u dhowdahay, walow kulanka hore iska khasaariyay gurigooda lagu garaacay, haddana waxaa leeyahay rajada Arsenal ma xumo. haddii 4 kulan uga harto ay badiso 4 kulan, kulanka ugu horeeya Tottenham ayay aadaysaa, Bournemouth oo imaanayso, waxayna aadi doonaan Manchester United. Evertonna kulanka ugu dambeeya waa 4taas game ayay Arsenal leedahay, 4taba hadday badiso kooxahana loo dhigo taako min hal game ah, Arsenal marka waxaa leeyahay horyaalka way dafi kartaa. marka waa arki doonaa wixii kasoo kordho. waxaa la leeyahay waxyaabo badan oo isbedelaa jiro, suuqa kala iibsiga oo furan yahay, ciyaartooy badan ayaa la kala doonaya, kooxaha ciyaartooy badan ay soo qabsan rabaan oo waxaa waaye kooxo weeraryahanay doonayaan, kooxo difaacay doonayaan, kooxo kale waxay doonayaan inay isku shaandhayn ku sameeyaan. marka Premier League wajiyo badan oo yeelan doona haddii Jose Mourinho yimaado, tababaraha cusub ee Amorim la yiraahdo yimaado, Manchester United tababaro cusub loo magacaabo, Premier League xafirtan cusub ayay markaasi ay noqon doontaa. marka way noo badan tahay. Anthony ayaa ka baxay xamsanaantii, waxaa la leeyahay wuxuuna ka jawaabay canaantii loogu soo jeediyey wixii uu ka sameeyey kulanka Coventry City. waa Anthony iska damiinka qalabka ayaa hadlay. wuxuu marka laacabkani oo waxaa la sheegay qabsaday markii uu Rasmus Hojlund dhaliyay rikoorkii, waxaa la rikoordii ugu dambeysay ee guusha ka hogaaminaysa kooxdiisa, wuxuuna arrintan ku canaantay taageerayaasha. dhegta ayuu qabsadaa la yiri. waxay marka xidig reer Brazil Anthony ayaa ka hadlay fal uu sameeyay ciyaarta Manchester United rikooriyaasha kaga badisay Coventry City ee semifinalka, taas uu u dabaaldegay markii ay kooxdiisa soo baxday ayuu yiri. marka dabaaldegaas ay dadka ku canaanteen waxaa yiri koox yar adoo ka badisay ma arrintaas ku dabaaldegaysaa. marka qoraal uu soo dhigay ayuu wuxuu ku sheegay in ciyaarta kadib uu ka tirtiray baraha bulshada, isagoo canaan badan u jeedinaya jamaahiirta kooxda oo ku tilmaamay in aanay garab istaagin kooxdooda. marka taageerayaasha canaan u jeediyay, waxaa leeyahay ninkan asagoo damin ah haddana taageerayaasha canaan marka dambena waa masaxay leeyahay, wuxuu leeyahay waa tirtiray. marka arki doonaa isbedelo waaweyn ee Premier League ka jiri doono, ciyaartooyda la keenay iyo wixii isbedelan. Xavi Alonso waxaa leeyahay inuu sii joogo ayaa laga yaabaa adiga Barcelona, maadaama rajo ay soo gashay oo ah inuu sii joogi karo ay markaasi ay dhici karto. arki doonaa wixii kasoo kordhay ciyaaralkan kusoo gudbo doonaa Gones Borussia Gremel Garcia tani kulanteeda bixisa leh fi amaan illah.